kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay golaha samata bixinta mustaqbalka Soomaaliya oo labadii bishan Oktoobar ee 2025 lagu aasaasay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya oo markan qabanqaabinaya kulan markaasi wada tashi oo degdeg ah. Haddaba kulankaas goobta markaasi la saadaalinayo in lagu qabto iyo sidoo kale goorta ayaan markaasi idiin soo gudbin doonaa iyo xogihii ugu dambeeyay markaasi ku saabsan kulankan degdega ah ee golaha ay markaasi qabanqaabinayaan iyo waqti xasaasi ah oo markaasi uu ku soo beegmay. sidoo kale Soomaaliya iyo Itoobiya oo wada hadallo cusub markaasi oo xasaasi ah yeeshay kuna soo beegay xilli markaasi aad iyo aad xaaladda waddanka ay xasaasi u tahay ayaan markaasi idiin soo gudbin doonaa daawadayaal inta warbixinteena aynu ku guda jirno. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad faahfaahintooda markaasi kaga bogan doontaan inta warbixinteena aynu ku guda jirno, balse marka koowaad soo dhawow muuqaalkan like saar siina share garee si dad badan ay u gaarto warbixinteena. waa hagaag golaha samata bixinta mustaqbalka Soomaaliya oo labadii bishan Oktoobar aynu ku guda jirno ee 2025 lagu aasaasay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa la sheegay in maalinta berri si rasmi ah ay u magacaabi doonaan guddiga markaasi qabanqaabada shirka weyn ee lagu wado in uu markaasi ka qabsoomo magaalada Garowe bilowga markaasi bisha November. Wareejyo lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan golaha ayaa xaqiijiyay in magacaabista guddigan ay tahay tallaabo muhiim ah oo lagu diyaarinayo shir ay isugu imaan doonaan madax siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kaasoo looga arrinsan doono mustaqbalka siyaasadeed, doorashooyinka 2026, midnimada iyo dib u heshiisiinta dalka. waxaa la filayaa in guddiga berri la magacaabayo ay ka shaqayn doonaan qorsheynta, martigelinta iyo sidoo kale isku dubiridka shirkan markaasi degdega ah ee ay qorsheenayaan golaha markaasi mustaqbalka Soomaaliyeed oo dhowaan lagu aasaasay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. golaha mustaqbalka Soomaaliyeed waxaa ku midaysan maamulada Jubbaland, Puntland iyo madasha samata bixinta kana soo uskantay shirkii dhowaan markaa lagu qabtay magaalada Nairobi. waxaana lagu wadaa in maalinta berri ay magacaabaan guddiga qabanqaabada ee diyaarin doona shirka ay golaha markaasi ku qaban doonaan magaalada Garowe, inkastoo la fili karo in magaalada Kismaayo loo weeciyo oo halka lagu qabto kulankan ay markaasi qabanqaabinayaan golaha mustaqbalka. guddiga waxay yeelan doonaan mas'uuliyadda dejinta goobta rasmiga ah ee shirka, jadwalka ajandaha iyo liiska ergada ka qaybgalaysa, taasoo calaamad u ah in madasha u socoto heer ficil ah oo ka baxsan hadalhaynta siyaasadeed ee hore. dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa haatan wajahaya cadaadis siyaasadeed sii kordhaya maadaama beesha caalamka iyo dhinacyada mucaaradka gudaha ay ka sugayaan in uu la yimaado gogol nabadeed iyo heshiis siyaasadeed oo lagu markaasi lagu wada tashado. haddii xal muuqda maalmaha soo socda uusan imaan oo dhinaca filla Soomaaliya uusan ka imaan, waxaa la filayaa in xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa filla Soomaaliya iyo Jubbaland lagu daray Puntland ay sii xumaato, taasoo u sii dheer tahay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo markaasi haatan shirweyne xasaasi ah qabanaya. haatan waxa kaliya la sugayo waxay tahay tallaabada ay qaado filla Soomaaliya maadaama golaha mustaqbalka Soomaaliya ay haatan war-saxaafadeedkoodii kaliya markaasi baraha bulshada lagu faafin jiray uu isu bedelayo ficilo oo markaasi madashu ay yeelanayaan kulamo markaasi waaweyn oo isdaba joog ah oo markaasi la filayo in dhammaantood ay ka qabsoomaan gudaha dalka. waxaana haatan laga dhur sugayaa dhinaca filla Soomaaliya waxa ay ka dhahdo kulankan uu markaasi iclaamiyey golaha wada tashiga ee qabanqaabadiisa haatan ay socoto. waa hagaag Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa maanta yeeshay wada hadallo markaasi lagu xoojinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal kadib khilaaf soo laabtay iyo oo markaasi muddo dheer u dhaxeeyay labada dhinac. kulanka ayaa markaasi dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ku sugan Itoobiya si uu uga qayb galo shirweynaha tana ee looga hadlayo amniga qaaradda Afrika.
war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa lagu sheegay in labada dal ay isla garteen muhiimadda xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta joogtada gaar ahaan dhinacyada amniga iyo howlgalka taageerada Midowga Afrika ee Soomaaliya AUSOM. waxaa sidoo kale lagu adkeeyay in labada dowladood ay si wada jira uga hortagaan argagixisada gobolka. labada dhinac waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyagoo ku heshiiyey in la sii wada shaqaynta joogtada ah. waxay mar kale adkeeyeen go'aankooda ah in ay iska kaashadaan dagaalka lagula jiro argagixisada gobolka ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya markaa ka soo baxay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isna toddobaadyo ka hor booqday Itoobiya, safarkaas oo qayb ka ah dadaalada lagu dhisayo kalsooni cusub oo u dhaxaysa labada dal. xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa hoos u dhacay sanadkii 2024 kadib markii Itoobiya heshiis badeed ay la gashay maamulka Somaliland 1 Janaayo ee isla sanadkaas. wadahadalladan ayaa yimid xilli maalmihii dambe soo ifbaxayso xiisad u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya, taasoo salka ku hayso qorshe ay dowladda federaalka ay maamul cusub ugu sameynayso gobolka markaasi soodinta ku yaala ee Gedo. sida aan horey markaasi halkan ugu baahinay, muranka ayaa markaasi hareeyay booqasho aan horey loo shaacin oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. xasan sheekh ayaa markaas la kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed intii u dhaxaysay Axaddii Oktoobar 12 bishan aynu ku guda jirno. kulankaas ayaa daba socday warar maalmo ka hor ka soo baxay oo sheegayay in Muqdisho ay dhaqaajisay qorshe markaasi balanbiya oo ay gobolka Gedo ugu dhisayso Jubbaland cusub kadib markii ay burbureen wadahadallo dib u heshiisiineed oo kala dhaxeeyay maamul goboleedka Jubbaland. Itoobiya ayaa markaasi la sheegay in qorshahan ay u aragto mid halis ku ah amnigeeda, sida ay ila wareedyo markaasi u xaqiijiyeen warbaahinta durdurka. soo bixitaanka qorshahan ayaa markaasi murjiyay xiisad dejin markaasi soo jiitamaysay bishii December 2024. labadan wadan waxay kala saxiixdeen baaqa Ankara iyagoo markaasi ballanqaadyo sameeyay, iskuna ballanqaaday in ay markaasi ixtiraamayaan madaxbanaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee midba midka kale. heshiiskaas ayaa ka dambeeyay xiisadii ka dhalatay heshiiskii badda ee Itoobiya iyo sidoo kale Somaliland. Itoobiya ayaa 2,500 oo askari ku biirisay howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee Soomaaliya AUSOM oo qaarkood jooga gobolka Gedo. gobolka ay Addis Ababa u aragtaa in uu muhiim u yahay danaha amni ee markaasi qotada dheer ay ka leedahay xuduudeeda, kuwaas oo hadda ka hor imaanaya dadaalka Muqdisho ee ah in maamul cusub markaasi laga dhiso gobolka Gedo, walow arrintaasi ay u muuqato mid haatan fashil ku dhow maadaama filla Soomaaliya cadaadis gudaha ah iyo mid dibaddaba ah haatan ay wajahayso. haddaba dad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan, soo dhawow marka koowaad oo nagu soo biir, subscribe-ka noo taabo, sidoo kalena like garee muuqaalkan, siina share garee oo la wadaag asxaabtaada. mahadsanidin.